Asalaamu calaykum asxaabta kusoo dhawaada Faiza Beauty. Haddii ay janaalkan ku cusub tahay fadlan subscribe saar gambaleelka taawo si aad ula socotid wax walba aan soo dhigo walaalahayga qaaliga ah. Maanta waxaan rabaa inaan ila wadaago custard fruit, labaniyad iyo khudaar aan isku darsanay. Waa alaab aad u macaan badan markaad afurtid ka bacdi aad isku qaboojin kartid. Maanta waxaa jeclaystay inaan ila wadaago nala daawada sida u samaysanayno. Digsi aad dabka saaranay waxaa ku shubanaynaa 3 koob oo caano ah walaalahayga. Waxaa kaloo ku soo darsanaynaa 3 qaado oo sokor ah. Haddana waxaa ku soo darsanaynaa vanilla. Haddaad rabtid heel waa isticmaali kartaa. Halahaana horta hore isku karkarinaynaa. Markay noo karkaraan kadib waxaa kor kaga soo darsanaynaa qasanaynaa. Waxaa ku shubaynaa 2 qaado oo kastar ah. Midka budada waaye kastar powder-ka ah. Waxaa korka ugu shubanaynaa caano. Haddaad rabtid biyo waa ku isticmaali kartaa walaalahayga. Intaana hadda isku qasaynaa. Markaas ka bacdi waxaa korka kaga daraynaa caanaheeni ayagana waa noo karkareen. waa ku shubana haddana waa walaaqaynaa ilaa 7 daqiiqo ama 5 daqiiqo. Markaa aragtid xoogaab inuu kuu soo adkaado diyaar waaye kastarkaaga ka dagso. Maasha Allah waa ujeediin. Hadda waa ka dagsanaynaa kastarka. Weelaa soo qaadanay walaalahayga waxaa ku shubanaynaa fruitkii aan soo jarjaranay. Fruit alla fruitka haystid waa isticmaali kartaa walaalahayga qaaliga ah oo adiga dooqaaga ah. Hadda kastarkeena ayaa soo qaadaynaa korka ugu shubaynaa. Maasha Allah waa ujeediin. Haddana waa walaaqaynaa wax yar waa is dhex gelinaynaa. Markaas ka bacdi fridge-ka gashanaynaa. Insha Allah markaan fridge ka soo baxsano siduu ku soo baxo waa arki doontiin. Maasha Allah fridge-keena ayaa ka soo baxsanay. Waa kaas weelkaas ku soo gudsanay. waa ku mahadsantahay daawashada videogan. Haddii aad videogan ka heshay like saar, share dhe asxaabtaada la wadaag. commentiga wixii ra'yigaagan hoos noogu reeb waa inuu videogan iyo videoga xigo.